الأنبياء والمرسلين ugu horeyn ilaahay baa mahad leh isugu keenay kulankan agaasimayaasha guud gudoomiyaha guddida hantida dabagalka hantida baak iyo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha aad iyo aad baad u mahadsantahay soo ajiibteen runtii hawshan maanta isugu nimadeenu u joognaa waxa weeyaan cilmi baadhis ku aadan 15 wasaaradood cilmi baadhistaas oo ah in la ogaado levelka ama heerka maamul wanaagga wasaaradaha adeegga bixiya aynu isqiimayno commissionka maamul wanaagga runtii wuxuu xilsaaran yahay tayeynta iyo toosinta qaranka iyo ku dhaqanka mabaadi'da maamul wanaagga sidaa darteed bay laga maarmaan noqotay in cilmi baadhis la sameeyo cilmi baadhistani waa markii koowaad ee uu commissionku sameeyo laakiin ma noqonayso markii koowaad oo kale insha Allah way sii socon doontaa runtii waxaad ogsoon tihiin cilmi baadhistu ama researchku waxa la yiraahdaa waxay daaha ka faydaa in la ogaado xogtaasi marka waxay noqotaa study in wax laga barto dabeedna la gufeeyo godololada sidaa darteed waxaanu cilmi baadhistan ugu talagalnay 15 wasaaradood ee intibaaxay oo ah 15 wasaaradood ee adeegga bixiya wajigooda koowaad marka waxaynu ugu talagalnay inaynu qiimayno heerka maamul wanaagga wasaaradaha adeegga bixiya ay ka taagan yihiin laba inaynu kor u qaadno marka dambe inuu qiimayno isku xidhka wasaaradahaas iyo wixii godololooyin ee jira uu commissionku buuxiyo marka hay'adaha dawladdu mid waliba waa unuga jirkuna muxuu ahaa is dhameystiraa maamul wanaaguna marka laga hadlayo waa wadnaha dawladnimada haddii aan maamul wanaag jirin waxay la mid tahay in qof wadnuhu buko marka inaynu maadaama qaranku jaranjarooyin badan soo maray maalinba meel aynu taagnayn iminka waxaynu gaarnay maadaama aynu 30 sano baarka ka jarayno waqtigii aynu u jihaysan lahayn hay'adaheenu halkay maanta taagan yihiin meel ka sii sarreysay inay gaaraan oo aynu caalamka la tartamo sidaa darteed waxaan markaa ugu talagalnay qodobka saddexaad waxa weeyaan inaynu kor u qaadno meelaha la darsay oo ay soo baxa iyadoo awood la siinayo oo commissionku awoodda ka shaqeynayo sidii uu buuxin lahaa meelaha gaabka ka soo baxo waxa kaloo ugu talagalnay in aynu ogaano satisfactionka ama qanacsanaanta ay ku qanacsan yihiin dadku adeegan oo faceka labaad isaguna insha Allah noqon doona sidaa darteed dhowrka meelood ee kooban oo mid waliba farac iyo furuuc badan oo sii yeelanayo ayaynu ugu talagalnay runtii waxaan idinka rajaynaynaa muxuu ahaayay inaynu si aynu hawsha inoogu qurux badnaato marka tiimka xogta ururinaya Britola insha Allah muxuu ahaayay hawsha bilaabaan si daahfuran oo gacantooye leh sidii awalba commissionka wasaaradaha aad ula shaqeyn jirteen inaad ugu soo dhaweysaan oo xogta waxyaabaha idinka baahan yihiin questionska ama su'aalaha aad u buuxisaan runtii ma aha cilmi baaris cid kale ay gacan ka geysatay oo cid kale muxuu ahaayay ay inagu dabagelayso laakiin waa cilmi baaris aynu inagu isku qiimeynayno dabeedna inagu isku buuxinayno wixii gaabay noo soo baxay si dawladnimadeenu ay u qurux badnaato inteenuba waxaynu har iyo habeen u eeganahay sidii dawladnimadeenu ay taabo noqon lahayd u taabo qaadi lahayd institution walba ama hay'ad walba dawladeedna ay kaalinteeda u qaadan lahayd marka waa tii waana dadaalada socda ee aynu maamul wanaagga ku higsanayno iyadoo aynu ku shaqeynayno qorshaha labaad ee qaranka iyadoo aynu ku shaqeynayno mandate-ka ama waajibaadka commissionka iyadoo aynu ku shaqeynayno himilada guud ee madaxweynaha iyadoo aynu ku shaqeynayno buuggii aynu ummadda u ballan qaadnay oo intuba ay simanayaan marka waa taas waxaynu isugu nimid runtii aad iyo aad waad u mahadsantihiin hawshani waa shaacin wixii dambe natiijada soo baxdana practical ama mid la taaban karo inuu gudbinaayo xafiis walba wixii gaabay noo soo baxa waynu isku celinayna waan tayeena insha Allah bismillaahi kariim aad iyo aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh